السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإذا سلام يا دماتين إلهي وحكم إلهي دمبي هدافو يدمبي والدين تيمبا. وحن سمعنا يوتيوب channel كير إلى هذا فهد شاكر. وحن كسو قد بنا معلومات مهمة يتاريخه يوليبا وحن صوت ديارنا ودما يسترن وكدي مدد كانوا سو قد بنينه. ما أنت موضوع إنه كل كسب سنة هاي بتكمله ديارنا هو العرب. استوكل ديار دو قارة أفريقيا كل حدا ديو ينتي ذكره. استوكل ديارته ugu weyn ay isticmaal dadii geeska Afrika ee ku tagaan Yurub, Mareykanka, Australia iyo Asia. Wadiyada Ethiopian Airlines wuxuu ka hadli doonaa macluumaadkeeda, taariikhdeeda, xilligii la sameeyay iyo weliba faa'iidada ay soo xareyso iyo dadka ka shaqeeyaba. Marka waxaan aaminsanahay ama aan filayo inaad wax badan ka faa'iido doonto. inta fiidiga adaba YouTube channel-ka adaba waxaad ka codsanaa dhamaantiinba haddii suurtagal tahay inaad YouTube channel-keena subscribe saartaan si aan u diro taageerada xaggiina. وناسنتين داوشة ونكس. شركة إثيوبيان إيرلاين waxaa iska la dowladda Ethiopia waxaa la aasaasay 12 bishii December sanadkii 1945 waxaa waqtigaas waddanka Ethiopia maamuli jiray boqortooyadii Haile Selassie waxay codsi u dirtay waddanka Mareykanka si looga caawiyo gaadiidka duulista hawada madaxda xilliga waddanka Mareykanku way ka aqbaleen waxayna ugu deeqeen diyaarado yaryar tababarna waa furan la xidhiidha cilmiga diyaaradaha duulimaadkii ugu horreeyay diyaaradda Ethiopian ee la qorsheeyay dalka dibadiisa waxay 8 bishii April sanadkii 1946 waxay ka dushay garoonka Addis Ababa oo ay transit ku noqotay Asmara ilaa ay caasimadda waddanka Masar ee Qaahira. Toddobaad kadib diyaaraddu waxay duulimaadkii labaad ee dalka dibadiisa ay ku soo caga dhigatay garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho. shirkaddu waxay xubin ka ahayd ururka caalamiga gaadiidka cirka ilaa iyo sanadkii 1959 ee loo yaqaano International Air Transport Association iyo weliba waxay shirkaddu xubin ka noqotay ururka isbahaysiga diyaaradaha Star Alliance oo ay ku biirtay 12 bishii December sanadkii 2011 ururkaas oo ay ku buuxoobeen 26 shirkadood oo diyaarada ah oo wadamo kala duwan ah xaruntooduna ay tahay magaalada Frankfurt ee waddanka Jarmalka. xarunta diyaaradda Ethiopian Airlines waa garoonka weyn ee Bole International Airport ee ku yaala Addis Ababa ee caasimadda waddanka Ethiopia. shirkadda xarunteeda ama saldhiggeeda labaadna waa dalka Togo ee Afrika. sanadkii 1980 ilaa iyo sanadkii 1990 waxaa la balaadhiyay diyaaradda Ethiopian Airlines iyadoo noqotay isku xidhaha qaaradda Afrika iyo adduunka intiisa kale. taasina waxay ka dambeysay marka Ethiopian Airlines ay ka soo jirtay shirkadda naqshadaynta iyo samaynta gaadiidka diyaaradaha ee Boeing ee laga leeyahay waddanka Mareykanka. talaabasna waxay keentay in shirkadda Ethiopia ay suuqa duulimaadka hore u gasho sarakac weynna ku yimaado kobaca dhaqaalaha shirkadda. dhibta ugu weyn ee diyaaradda Ethiopian Airlines horyaalay waxay ahayd tartan kala dhaxeeya diyaaradaha Egyptian Airlines ee Masaarada iyo diyaaradda South Africa Airways ee Koonfur Afrika oo xagga suuqa tartan adag kala dhaxeeyay. diyaaradahaas oo labaduba laga leeyahay wadamada Masar iyo South Africa oo ku yaala waqooyiga Afrika iyo Koonfur Afrika. guusha ugu weyn ee ku talaabsatay diyaaradda Ethiopian Airlines waxaa lagu sheegay waa maamulka howlwadanada iyo duuliyaasha diyaaradda oo la jaanqaaday tiknoolajiyadda casriga iyo weliba mandaqada ay ku taalo Ethiopia ee geeska Afrika oo wadamada bariga dhaxana aan ka fogeyn iyadoo ay jireen shirkado kula tartama duulimaadada suuqa iyo gorobada waaweyn ee diyaaradaha. Ethiopian Airlines waa diyaaradda ugu weyn qaaradda Afrika marka la eego alaabooyinka ay qaado, meelaha ay ka soo adeegto, baaxadda diyaaradda iyo dakhliga. waxayna xambaarsan tahay astaanta, calanka iyo sharafta dalka iyo dadka Ethiopia. Ethiopian Airlines waxay leedahay 128 diyaaradood oo isku jira diyaarado waaweyn sida Boeing, diyaaradaha dhexe sida Airbus iyo diyaarado yaryar oo Air China. Ethiopian Airlines waxay leedahay 65 diyaaradood oo qaabilsan duulimaadyada dibadda oo dalka iyo badeecadooyinka u kala dhoofsha qaaradaha Afrika, Asia, America iyo Yurub. waxa kale oo diyaaraddu samaysaa duulimaadyo dalka gudihiisa oo ay ku tagto gobollada iyo magaalooyinka waaweyn ee Ethiopia. marka aynu eegno magaalooyinka Soomaalida ee shirkadda Ethiopian Airlines ay garoomadeeda diyaaradaheeda ay ka soo degto kana dhoofto waxaa ka mid ah magaalada Djibouti, Muqdisho, Jigjiga, Hargeysa, Goday iyo magaalada Garowe. sanadkii 2010
dadka ku safray diyaaradda Ethiopian Airlines waxay ahayd 3 milyan oo ruux 10 sano kadib oo ah sanadkii 2020 waxay noqday 13 milyan oo qof oo kala dhoofay dhammaan dacallada adduunka sida lagu qoray website-ka diyaaradda Ethiopian Airlines faa'iidada sanadka Ethiopian Airlines waxay noqotay 4 bilyan oo dollar shaqaalaha iyo hawlwadada Ethiopian Airlines waxay noqdeen iyaduna 17,000 oo qof oo daafaha adduunka kala jooga shirkadda Ethiopian Cargo and Logistics ee noqotay shirkad sumcad iyo sharaf ku dhaxleh wadamada warshadaha soo saara badeecadaha ka ganacsada sida wadamada China, India, Imaaraadka Carabta iyo Mareykanka taasoo qayb weyn ka noqotay ganacsiga Ethiopia maadaama dadka Ethiopia aanu lahayn wax bad ah soo dejinta iyo dhoofinta xamuulkana ugu badanna ay u adeegsato diyaaradooda shirkadda Ethiopian Airlines qaybtida cargo-ga waxay qayb weyn ka qaadatay raridii iyo daabulidii 50 milyan oo talaalka koronaha dawooyinkaasoo loo kala dirayay wadamada Afrika si looga hortago xanuunka koronaha geesta kale wadanka Ethiopia waxa ku jira dugsiga tababarka duuliyaasha ama pilotiska oo la furay sanadkii 1964 horumarka xaruntan oo khibrad iyo aqoon sare u leh cilmiga aviationka waxay keentay in wadanka Ethiopia uu ka sameeyo isku filaansho dhinaca diyaaradaha iyo pilotiska oo ay ka qalin jebiyeen 52 duuliye 319 shaqaalaha loo carbiyay hagida iyo maamulka duulista iyo hawada iyo garoomada diyaaradaha mid ka mid ah diyaaradaha Ethiopia Airlines ayaa shil gashay 10kii bishii 3 ee March sanadkii 2019 taasoo kala safraysay Ethiopia caasimadeeda Addis Ababa iyo caasimadda wadanka Kenya Nairobi waxaana ku burburtay meel u dhow caasimadda Ethiopia Addis Ababa diyaaradda oo nooceedu ahaa P737 800 Max waxayna jirtay oo shaqeynaysay diyaaraddaasi 4 bilood oo kaliya waxaa laga soo iibsaday shirkadda Boeing ee wadanka Mareykanka waxaana ku nafwaayay 157 qof oo isku jira rakaab iyo shaqaalihii diyaaradda